سيدا درتيد بار رسولك عليه الصلاة والسلام وحليها استعينوا بأموركم الكتمان وروحي إلهي وهبة إذين سيئي مالك وكليا ما هنا وحي إلهي هبة إذين سيئي قرصدا لأن لكل نعمة فإن لكل نعمة حسود نعمة كستو إفكا تعالى عد أمبا كيو أتو محروقه حاسد كوة مركا نعموين كين هذه كير أسترتا أيو النبي عليه الصلاة والسلام marka ruuxu had iyo jeer quruxdiisa iyo awoodiisa iyo aqoontiisa iyo cilmigiisa iyo inuu mar walba fagaarayaasha isla soo taago ma fiicna in badan waxa anigu aan arkay ilmo yar oo caruur ah intuu raqam waaxid ka galay iskuulka macallimiintii intay fagaaraha soo joojiyeen isla maalinta wixii laga bilaabo aqoontii ay ka masaxantay ama dugsigiiba aadi kari waayo aqoontiiba la nacsiiyay anigu waxaan goobjooga ku yar oo aan dhalay ayaa 3 jir ayuu caruurta ku raacay madrasadu aaday malcamada markaa isagu ma dhigtay uu dhageystaa uu sidii soo dhageysanayay uu 5 jis caruurtii akhriyaysa ka xifdiyay dadkii baa yaa wax ma sha Allah ila markii dambe ilmihii madrasadii waan ku kari waayay caruurta haduu raacana intuu ka leexdo gudaafad fadhiisanaya habeen kaliya 5 jisba maskaxdiisii ay ka dhilid garoobeen halbeen kaliya ay maskaxdiisa ka dhilid garoobeen marka bahashan issue waa halis weeye waxaan uga hadlayaa aqoonaan u leeyahay weeye oo in badan way soo martaa marka qofka muslimka ahi inuu maxaasintiisa qarsado madaaristan ilmaha xayeysiiska looga dhigayna in laga daayo madrasadii buu rabaa inuu xayeysiis u samaysto ardaygii ugu fahmada badnaa ayuu soo joojinayaa meel fagaare dabadeedna markuu ka degaba masrixi ilmihi maaha markii buu isbedelaya marka goorta hadii ilmaha shahaado la siinayo oo ilmahaagu uu ku yiraahdo aabo wankan galay ha u ogolaanin inuu isagu fagaara istaagay adigu u soo qaad xataa wixii la siinayo adiga waalidka inta tagto wixii jaayisad la siinayo wixii hadiyad la siinayo adigu inta ilaahay cuskato aayaadkaaga iska akhristo u soo qaad laakiin caruurtiina fagaaraha keenina oo wixii ilaahay haybad siiyay yaan looga dhigin xayeysiis iskuulkaas caruurta si fiican wax u bara si loo yiraahdo darteed ba inta badan caruurta magaaraha u keenaan hadhowna waxaan xasuustaa waqtigiisii aad bare Sheekh Cabdirashiid Ali Suufi baa wuxuu kaxeeyay inaan 7 jir buu ahaa Sheekh Ali Dheera uu ahaa nin garanaya waxa la geeyay Sacuudiga سعودي قال لقي صدق القرآن كعالم كيسجى رقم 1 قاطع عالم كنا تدبشر باي الماس مركي دم ماشي لقسوا عليه ماذا حبب برا كسب حضي المهيرة ماذا حي برا كسب حضي عالم كنا باتي فيك اللي قدامني رقم 1 كون نقضي مركا لأن فإن لكل نعمة حسود نعمة كستاب حاسد باي الله ضهاي marka hadii ilaahay nicmo ku siiyo nicmatul maal ama nicmatul ilm ama nicmatul quwwa wa nashaat ama nicmatul awlaad ama nicmatul jamaal haduu ilaahay ku siiyo asturo lagu lama qabo asturo hadii kale waxaan hadhow mahadinaynin baa kaaga iman doona waana taa ina barayo nabiyullaahi yacquub alayhi salaatu wasalaam uu leeyahay maandooyinow markaad meesha tagtaan idinkoo sunsumaya oo 12 nin oo degeed ka wada laaleega tihiin albaab kaliya ha ka gelina wadkhulu waxaad ka gashaan min abwaab mutafarriqa albaabo kala duduwan ka gala waa sirta nolosha hadaanad quraanka kala soo bixi karaynin waxa tayn ka مثل الحمار يحمل أسفارا قرآنكني طب النبوي هي طب المادي هي طب الروحاني انتبهوا بالسجوجرا فكان نبي الله يعقوب كبرت 10 كان وينبريو وتحدر عن العين عينته إنها تكفي جناته ما كان صار هي مر والبده هذا يعني عبسي مر والبها عبسنن مر والبها عبسنن أديكو إلهي اسكو حريا أسبابتي لقى حجابني إيش الله كاله وأذكرت الصباح أذكرت مساء يويسد هذا هي صدقة waxa ugu fiican cudurkan lagu daweeyaa waxa weeyaan sadaqada iyo
salaada labadaa ruuxu hadduu ilaashado walaa cayn baan karayn walaa sixir baan karaynin beri baa waxaa aan idinka yaro sheekeeye naag waxaa ii timi naag baa ii timi waxay iga sheekaysay naagta kale uga sheekaysay ninkeeda ayay doonaysay inay sixir maxabbo ah u samaysato oo uu jeclaado sixir maxabbo ah bay u samaysanaysay mid sixiroole ah ayay islaan sixirooley ah ayay 4 jeer ku noqotay oy leedahay ilaa hadda wax isbeddela ninkii kuma hayo markii dambe islaantii waraysatay waxay tidhi nahaadhe bal ninkaaga iiga warran siduu ku yahay weysada markaasaa waxay tidhi haddii uu guriga ka baxayana weysu ku baxaa haddii uu seexanayana weysu ku seexdaa islaantii sixirooleyda waxay tidhi ninkaa ha ku daalin waxba la heli mayno ninkaa ha ku daalin waxba ma qabadsiin karre waxaa aniga ii yimi nin ay rag isqabteen oo ay sixir u xidheen oo ay qabadsiin kari waayeen maalin galab galbaha ka mida ayuu meel tuulo ah buu ka carraabayoo gurigoo meel yaro fog ayuu u carraabay burca laygu keenay yuroba markaan deganaa ninka dabeedna markuu salaaddii maqrib tukaday ayuu ul yaro leexday meeloo uu kaajay uu iska bi'iyey uu dhaqaaqay mar allaaliya markay weysadii ka jabtay ayaa gantaal waxaynaan dee nabarba halkaa kaga dhacay aan muuqanayn ninkii wuu sooxay barqadii dambe ayaa dadkii waddada marayay ay soo heleen isagoo koomo ku jiraa la ii keenay markaan qur'aankii ku aqriyey ayay wax ka dhaxadleen jimamkii la adeegsanayay sixiroolayaashu marka waxay yidhaahdeen intaasoo sannadood baan daba soconnay oon jaanis ka weynay galab caynkaasa ayaanu halkaa ka helno markaasaanu gallay hadhow markii ilaahay uu ka saaray wixii ayaan warsado waxaan ku idhi galabta caynkaa iyo caynkaas ahayd markaad carrowday halkeed kaadida ugu leexatay halkaa markii aad kaadida u leexatay aad iska bi'isay wixii ka dambeeyey maxaad ka xasuusataa markaan kaadidii ka dulkacay aan iska biyey baa war iigu dambaysay bay buuri baa war iigu dambaysay qiso kale oo aniga laftayda ila kulantay nin baan 8 maalmood qur-aan ku aqriyey waana la sixray jinkii ku jiray ee camiilka u ahaa sixiroolaha ayaa markaa wuxuu ku hadlaya carabka ninka 8 maalmood baa wada hadal noo socday dee qiso dheer bay noqonaysaa waqtigay naga qaadasay jinkii markaa wuu muslimay jinkii sixirooluhu soo dirtay martiini baa la odhan jiray magaciisa magacaa baan ku idho martiini baa la yidhaahdaa markaasaa casarkii dambe ayaan intaan suuliga galay aan soo istijaystay baan soo noqday anoon weysiisan waan ilaabay waa markuu muslimiid ka bacdi markaasaan qur-aankii ku bilaabay wuxuu ihi waryahay maxamed hee war orada soo weysiiso markaasaan ku yidhi war waan weyse qabay maxaad u jeedaa war wallaahi ma weyse qabtid war soo weysayso hay markaasaan xasuustay inaan weyse qabin waan kacay markiiba waan soo weysaystay markaan soo noqday waan ku idhi martiiniyow maxaad ku garatay inaan weyse qabin waxaan ku gartay buu ihi difaacaaga jilicsanaa haddaan gaalkii ahaan lahaana waan ku dhaawici lahaa haddaan sidaydii gaalnimadii u haysan lahaa wax allaale wax iga kaa xigay ma jirin difaacaaga adkaa marka weysadu waa difaaca waxaana la yidhaahdaa alwuduu silaaxu lmu'min weysadu waa hubka mu'minka haddii aad dagaal ku jirto ood intaad hubka dhigato aad cadowgii afka uga gasho maxay kugu samaynayaan way ku xidhxidhanayaan way ku garbaduubayaan marka alwuduu silaaxu lmu'min waxaan tajribaynay weysada iyo jamaca salaada iyo sadaqada saddexdaa maado wax uga baawar weyn daaweynta xanuunada sixirka iyo isha iyo xasadka maanu arag weysada iyo salaad maxaan ku idhaahdaa sadaqada
iyo jamca salaada saddexdaa maado wax uga awood badan saddexdaa difaacooda maan arag anu intaan baabkaa ku dhex jiray maantana wuxuu nebiyullaahi yacquub ina barayaa inaan waxeenna iyo awoodda ilaahay ina siiyo dheeraadka aad haysatiyo mawhubada ilaahay ku siiyey inaanad ku goolaaftamin oo aanad bannaanka soo wada dhiganine aad isla gaabiso wixii ilaahay nicmo ku siiyey wuxuu ku yidhi markaa nebiyullaahi yacquub wadkhuluu ka gala min abwaabin mutafariqa albaabo kala tagsan ka gala anigu haddaan yacquub ahay buu yidhi wamaa ugnii cankum idinkama kaafin karo xaggiinna min allaahi shay-an anigu ilaahay idinkama celin karo laakiin asbaabtaan la imanaya in ilxukmu xukumka uma sugnaanin ilaa lilaahi ilaahay baa guddoonka iska leh xukumka ilaahay baa iska leh wuxuu xukumana anu ma celin karo laakiin ka waalid ahaan iyo ka caalim ahaan ka nebi ahaan intaan ogahay inaan annagu asbaabta la nimaadnaa nala faray calayhi tawakaltu ilaahay baan isku halleeyey oon tala saartay wa calayhi ilaahay korkiisa uunna falyatawakkal ha tala saarto almutawakkiluuna ciddii wax tala saaranaysaa tala